saaxiibkiis ayaa qayaanay ilmadii ayuu ceshan waayay sida halkan idinkaga muuqata waxa uuna xasuusanayaa saaxiibkiis salay qaabka uu arooskiisa u joogay isla markaana uu iskula jeclay labadooda gabadhii uu markii dambe isagu qaabka qayaanada ah ula wareegay wiilkan waxa lagu magacaabaa Cabdifitaax Mucaashiq waxa uuna ka bixi waayay isbitaal halkan waxaad ka aragtaan Sheekh Kanyaawi oo ku mehrinaya xaaskiisii labaad ayadiina waa ay diiday oo asagoo aan taaban isla markaana hal hamiin aan la guri gelin ayay ka dhaqaajiday oo ay tiri wariga tag meesha waxba kuma haydid oo qof yahu jilicsanta ah ugu dambayna waa ay ka tagtay lacagtii adduunka ayaa ka baxday markii horena waxa ay u sheegtay inay ilowsii doonto jacaylkii uu u qabay Mrs Unsi gabadhii qalanjada ahayd ee Mareexan gabadha iyo wiilka halkan idinkaga muuqda waxa ay ahaayeen lamaano aad isku jecel balse gabadha familkeeda ayaa markii hore kala furay wiilka iyo gabadha kadibna isagseeg ayay dhex dhigeen oo sidaasi ayaa lagu kala furay wiilku gabadha weligiisba waa uu jeclaay waana uu ka daba ilmay jiray asagoo oo weli jecel ayay guursatay saaxiibkii shalay arooskiisa ka ahay kaamiramanka isla markaana iyagoo oo damaashaadaya duubayay waa shay sidii qof xanuunsan oo si caadi ah u waalan ayuu xaafadaha islii wareegaya bildhanada dadku ay dhisteen kadib markii uu soo xasuusto saaxiibkiis deeqtare qaabkii uu uga dulqaaday jacaylkiisii uu dunida u jeclay ee Mrs Unsi dadka halkan isku jiifa ee halkan raaxaysanaya ee jawiga ku jira ee wada baashaalaya nin ayaa u waashay dartood isla markaana isbitaaladii ay waxba ka qaba waayeen 15 isbitaal oo ku taala Nairobi Kenya ayaa la geeyay wiilkan oo markii hore ahay magaciisu Cabdifitaax balse markii dambe la baxay Cabdifitaax Mucaashiq waa ka halkan ku ilmeynaya isla markaana ilmadiisu hamiinkii waxa ay ku tilmaameen familkiisu inaanu siixan cuntana aanu cunin isla markaana jacaylka uu u qabay Mrs Unsi ilaa hadda uu madaxa ka weynaanayo haddaba aanu dib u laabano wiilkani markii uu Mrs Unsi waayay saaxiibkiisna uu ka guursaday jacaylkiisii oo dunida uu ku jeclay waxa uu guursaday oo isku dayay inuu qalbiga ku qabowsado ina adeertiis saaxiibtiis rasmi rais oo ah fanaanad Soomaaliyeed balse ayadiina waxa ay ku dhigtay wax lama ilaawaan ah isla markaana oo ku sii waasho isla markaana uu xaafadaha islii ku dhex wareego heer ay dadku yiraahdaan war maxaa ku dhacay wiilkii haddaba qarash ayuu isgeliyay lacaga badan ayaa laga qaaday meherkii waxa laga wacay Sheekh Kanyaawi oo la yiri kaligiis ayaa mehrinaya kadibna markii uu meherkii dhacay oo arooskii la dhigay isla markaana uu doonayo inuu habeenkaasi farxad qaato isla markaana uu lugu kala jiido ayaa waxa ku dhacday wiilkii waxa isku diiday gabadhii oo doonayay isla markaana uu islahay farxad ayay ku sii doontaa oo waa in adeerta kadib siday wax u dhaceen Cabdifitaax saa u gashay Cabdifitaax aniga kama kaftamo wallahi billahi ana ka kaftamin Cabdifitaax curadkayga aabihiis weeye okay waxa walba sheega ana Cabdifitaax kama kaftamo والله أنا كنت عرضت ما أنت يا كتعلاه كيف كتعلاه ما في هوري عد أنا كتعلاه ما لهم وأبيه سلم وعرضت كي قال لي ويس إذا أنا وقفت مع فتحني أما وحنا وشجع ما وحنا بسمية والله أنا كنت من أمام بيوم بينها كلها ودون كي تشوف أنا وأنا جنت أنا واحد كستو ما أنت أكتين أمام مين إنسانة أو شيء سنة أو شيء واحد كأكتين ملا أنا أمام الصفر استعلا أساس السنة أمام له ما اسمه كذا لكن الصار قوة وحشرو Okay. كوبا صقر عرفت وكذا أنا معه هاي زقاه أنا بوحب كله كمان كفتمو أنت نولا أروى ونحشني عرفي أبيز بقول له هاي زقاه ولا صقر أنا سجور بيجي شري Okay, you know, أنك سافوا سوي كارتي بدوسارة ما كلام قايلو حديث يوم أصلا مسؤول سباش لو هذا أصلا دو كدعو أنا وساميه ما حيري درس نوي أكون كرو ما حيري يوسف أبيز أوكي كذا سوا مركل ولادك markuu dadka marka dhamaanad awlaad ka dhaxaysa suuq
ilmahayga markaa 8 bilood bari markuu hadalka barto inuu aabihiis barto qof cudur ku hayoon haddana ka caawinayn cadka maqal baa la yiri gabadhani waxa ay sheegaysaa inaysan ka kaftabin Cabdifitaax Mucaashaq balse waxa ay ku bahdishay saaxiibkiis ugu dhawaay iyadoo oo og in shalay looga furay qasab isla markaana Cabdifitaax marnaba uusan ka maarmin markii uu islahay Nairobi Kenya ay ku soo laabatay oo hadeertan Mrs Unsi waa ay ka soo dhaxbaxday familkii shalay ka furay ama ku diiday waxa ay ku tagtay Nairobi qof kale oo saaxiibkiis ah ay ku guursatay kadibna waalidaasi loogama horeyn Cabdifitaax waqtiga uu halkan taagnaay oo islahay rasmi ra'iis ayaa farxad ku siinaysa ma ahayn mid faraxsan oo waa kaasi qoortiisa laabaya balse rasmi waxa ay tusinaysaa jacayl ayadoo uu u sheegaysay inay asaga uu haysto ayada balse uu isku iloobo jacaylkii hore haddana ayadii ayaa mar kale qalbiga ka jabiday oo ku jarribtay in faleembooyin aad u dheereeya lagu xiro Cabdifitaax isla markaana uu isbitaalada jiifo halkan ayuu jiifaa asagoo aad u ilmeynaya isla markaana saaxiibkiisii qayaanadii uu ku sameeyay qaabkii ka darnayd ee rasmi ra'iis ta lacagta uga cuntay ee uga tagtay isbitaalka dhexdiisa ayuu aad ula calool madow yahay asxaabtiisa qaar ka mid ah ayaa isku dayay inay dhiirigeliyaan oo kumentiyo u qoraan balse Cabdifitaax waa uu iska diiday arrinkaasi oo gabi ahaanba waxa uu yiri waxaasi uguma socdaan adiga horta guys meeshan horta Cabdifitaax u soo duceeya meeshan qosol miyaa la kaftan miyaa la caaymiyaa lo horta dad badan arkay Cabdifitaax fustooyin u riixayo ani caaynayo ifalanqayno horta oday weyn baa tahay ani horta afkeyga caay kuma qabto because ani qof iga weyn inaa caayo la iguma soo tarbiyeenin inaa qabiilada caayo qof iga weyn inaa caayo horta adiga wada dhashay ummadaha islaamkana hadaa dhibtay ubadkaaga iyo adiga iyo aakhiradaadi kula taalaa qabiil baa caynaysaa qabiil baa falanqaynaysaa rag ogaadeen oo maxaa arkay meesha saaran caaytamayo horta kaala adinka ogaadeen oo min la isku kindiraya oo min la kala shaqaysiinaya oo dad oo adinkani yahayn oo qabiil kale baan isku kindiraya taas markii laga soo tago Cabdifitaax hada neefta ku kacsan depression iyo anxiety laga hela dhinaca maskaxda qof kastoo dhalinyarana wuu qabaa qofka inuu dhaw cudurkaas waa qabaa wax weyn bay la tahay dadka qaar markay ku dhacdo balwada ay bartaan waxyaabo qaar ay sameeyaan dad qaarna oohin ayay ka tustaa ilaahayna muxuu dhahay umadeeda waa kuwa isku naxariista waa kuwa isku gargaaro gaalada cadaanka UN-ta waa aragteen muslimka ee u gargaaraysa waana gaal soo marka Soomaaliya gaaladii ma niga naxariis badan adinka halka kale oo fiyus ka gala oo la soo caaytamayo gabadhaasna waa gabar ay kala tageen waa marwo sharaf leh gabadhaas aa leedihiin uu ooynayaa in nafsi ka soo baxay wiilkan gabadhaas xiriir soo dhaxmaray oo wada isku hayaan meel ay ku kala go'aan malahan caayada iyo aflagaadada ka dhaafa dadka afustooyin ku riixaysiin joojiye wiilkan saaxanuusan haloo soo duceeyo inta muslim isbitaalka uu joogana waa isbitaalka Anisa California marka